ismaqal iyo daawasho wacan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa 25 bisha shanaad 2019 wararkan idin hayna kuwooda ugu door korona waxa kamid ah Somaliland oo qorsheynaysa inay ka taqalusto madaxweyne Farmaajo oo ay ku eedeeyeen in uu sameeyay jabhado hubaysan faahfaahin ka soo baxaya darawal mooto bajaaj oo lagu toogtay magaalada Muqdisho sargaal ka tirsan ururka Daesh oo lagu qabtay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo dhawaan u safraya Sacuudiga iyo shir degdeg ah oo loogu yeeray musharax madaxweyne ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cabdirashiid Xidig oo ka badbaaday qarax la doonayay in lagu qaarijiyo iyo shirqoolkan uu ku eedeeyay mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland xukuumadda Soomaaliya oo ku eedeysay maamul goboleedyada inay dana ka leeyihiin diidmada sharciga batroolka maxay ka wada hadleen xildhibaanka ka socda Djibouti iyo madaxweyne Muuse Biixi oo ku kulmay Hargeysa wasiirkii geeriyooday xukuumadda Soomaaliya marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo abaalmarin caalami ah ku guuleystay iyo gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo gudoomiye degmo ka noqotay UK iyadoo xijaaban intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka janalka dabagalka wararka haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir janalka adigoo subscribe saaraya kana mid noqonaya saaxiibada joogto hel 24 saac wararka degdega xogaha qarsoon faallooyinka warbixinada iyo dhacdooyinka siyaasadda Soomaaliya iyo caalamka sida weyn looga hadalhayo oo halkan aan ku baahino 24 saac kuma adsanid in aad nagu soo biirtay haatanna warkiyo fidsanna Somaliland ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay ka taqalusto madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen inuu sameeyay jabhado hubaysan wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Axmed Kaahin oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyay jabhado hubaysan wasiir Kaahin ayaa sheegay in jabhadahan loogu talagalay in lagu dagaalamo Somaliland isla markaana ay u gudbiyeen beesha caalamka dacwad ka dhan arrintaasi waxa uu sheegay jabhadaha hubaysan qaar kamid ah rag hogaaminaya Somaliland ay u taqaan si wanaagsan oo lagu doonayo in lagu burburiyo Somaliland waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu dhibaato ku hayo deegaanada maamulka Somaliland wafdi ka socday Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ayaa la kulmay qaar kamid ah safiirada caalamka waxaana ay sheegeen inay kala hadleen xaaladaha Somaliland oo jabhadaha ay ugu horeeyaan sidoo kale siyaasiga mucaaradka Faysal Ali Waraabe ayaa dhankiisa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo in jabhado hubaysan uu ka sameeyay Somaliland sidoo hadalku dhigay waxaan uu sheegay in ay la kulmi doonaan cadawga dawladda Soomaaliya sidoo hadalku dhigay isagoo sheegay inay qorsheynayaan sidii ay kaga taqalusi lahaayeen dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo soo gaadho Allah kulmeed ana la kulmeed kaalay ana la kulmeed soo lama kulmeed anagoo sheekada ma soo looyino shaab ku cabeynaa waxaad ogaataan cadowgayga waa saaxiibka your enemy is your friend farmaajina jabhado inoo samaysay jabhado annagu laakiin si ilbaxnimadii mucaaradkooda ayaan la sheekaysanaa annagu mucaarad baan nahay mucaaradku u yeelinaa waxbaanu barinaa sidii looga takhasus lahaa farmaajina ka shaqaynayna haddaan han ucud iyo wixii xunay nagu xunba dee wadano cuwa ciro wili meel lagu soo taswiray koo farmaajo ma aragtay soo hoos buu uga sheegnaa negative uu sheegay dalka laakiin anagu positive motion wala doodna muxuu isla qaranaya ma siyaasad hadii saraakiil wadani imika ay la kulmaan wadani waa ciro wili ka cid la kulmay ma aragtay waa la sheegaa wili tasawir ma qabatay muxuu isla qaranaya xalaal waxa la xashaa maalin baa la qashaa anigu laakiin farmaajo wala kulanay cali khalif BBC aan waranay waxaan kula waranay bal 10 jeer buu farmaajo la kulmay ilaa doorashadii bal qurax darawal mooto bajaaj ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo askarigii dilay ciidanku ay gacanta ku dhigeen wararka naga soo gaaraya degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay nin dhalinyaro ahaa oo watay mooto bajaaj dilka ayaa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaan afar irdoodka degmada Xamarweyne goobtaasi oo meel mashquul badan maadaama dadka inta badan ay ka dukaamaysanayaan suuqa
ciidamada booliska ayaa la sheegay durba inay gacanta ku dhigeen askarigii dilka geystay. lama oga sababta askarigan uu u dilay darawalka mootobajaajka, balse arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil ku xukuntay askari dilay darawal mootobajaaj. ciidamada dowladda oo hubka isaga dhex watay magaalada gudaheeda ayaa tacadiye kala duwan u geystay dadka shacabka oo ay u badan yihiin weliba dhalinyarada bajaajta wadda. dhanka kale nisa ayaa sheegtay in xubin ka tirsan daacish lagu qabtay magaalada muqdisho. hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa sheegtay in la qabtay xubin ka tirsan ururka daacish kadib howlgal ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen muqdisho. sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay bogga Twitterka ee hay-adda nisa, waxaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka howlgal ay ka sameeyeen degmada Howlwadaag. nisa ma aysan bixin macluumaad dheeraad ah oo ku aadan xubinta la soo qabtay, sawirka iyo magaca loo yaqaan. howlgal 24 bishan ciidamada amnigu ay ka fuliyeen degmada Howlwadaag ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo qabtay dhagarqabe ka tirsan daacish. ciidamada amnigu way sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka xubnaha argagixisada al-shabaab iyo IS kuwaas oo ku howlan dhibaateynta shacabka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay nabad sugidda. ciidamada dharcadka nabad sugidda ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fulinayaan degmooyinka gobolka Banaadir. howlgalladaasina waxaa lagu beegsadaa shakhsiyaadka ka tirsan al-shabaab iyo daacish. dooxda kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa la filayaa inuu uga sii duulo dalka Sacuudi Arabia. madaxweyne Farmaajo ayaa ku sii jeeda wadanka Sacuudi Arabia halkaas uu kaga qayb galayo shir degdeg ah oo boqorka Sacuudiga uu isugu yeeray madaxda Carabta iyo kuwa Khaliijka, waxaana looga hadli doonaa weeraradii u dambeeyay ee Xuutiyiinta Yemen ay ku qaadeen Sacuudiga iyo Imaaraadka. safarka madaxweyne Farmaajo uu ku joogo Koonfur Afrika ayaa maalmo qaadan doona kadib markii uu maanta ka qayb galo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa. waxaana la sheegay in inta laga gaarayo 30 bisha May uu ku sugnaanayo Koonfur Afrika kadibna uu uga sii gudbi doono magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama. kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalantay Yemen ayaa dagaal kula jirta isbahaysiga taageera dowladda Yemen ay ka mid yihiin wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waxaanay dhawaan gantaalo ku tuureen Sacuudiga. dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in qarax miino laga soo saaray dhabarka dambe ee hoyga xildhibaan Cabdirashiid Xidig uu ka degan yahay magaalada Kismaayo. sida wararku ay sheegayaan ilaalada Xidig ayaa ku guuleystay inay fashiliyaan qaraxan oo markii dambe ay kala furfureen, waxaana xoogta ku soo wargeliyay dadka shacabka kuwaas oo sheegay inay arkeen waxyaabo ay ka shakiyeen. qof ka mid ah dadka ku sugan magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in qaraxa la doonayay in lagu waxyeeleeyo xildhibaan Xidig oo sidoo kale musharax u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland doorashada la filayay in Kismaayo ay ka dhacdo bisha Agoosto. Xidig oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa dhawaan loo diiday in garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyaan qaar ka mid ah taageerayaashiisa, iyadoo arrintaas magaalada ay buuq ka dhaxdhalisay inkastoo markii dambe si hoose loo xaliyay. ma jirto weli wax war oo arrintan ay ka soo saareen laamaha ammaanka maamulka Jubbaland kuwaas oo isu xil saaray sugidda amniga musharaxiinta madaxweynaha. lamana oga minada cidda ku aastay dhabarka dambe ee hoyga xildhibaan Cabdirashiid Xidig uu ka degan yahay magaalada Kismaayo. xildhibaanka qoraal uu soo dhigay boggiisa xiriirka bulshada waxa uu ku faahfaahiyay qaraxa la fashiliyay iyo cidda soo maleegtay, waxaana qoraalkiisa u dhignaa sidani: ilaah mahadii waxaa fashilmay fal wuxuushnimo ah oo ay maleegayeen shakhsiyaad xukun madax maray. waxaa hubaal ah in qarax lagu diyaariyey ama la keenay guriga askariga ilaaladeeda ka mid ahaa loo soo waday guriga aan deganahay magaalada Kismaayo. sidoo kale baaritaan kadib waxay u muuqatay in qaraxa aan laga keenin lagana soo abaabulin meel ka baxsan gudaha Kismaayo. caddeynta ugu xoogan ee tilmaamaysa raadka halka qaraxa uu ka soo jeeda ayaa muujinaysa sida dhibka yar ay u xambaarteen qaraxii oo aan lala socodsiin hay-adaha amniga ee Jubbaland iyo ciidamada u tababaran kala furfuridda qaraxyada, taasoo lagaga hortagay in hay-adaha amnigu ay baaritaan ku sameeyaan. sida maanta dhacday oo kale way adag tahay in qarax meel lagu diyaariyey qof u yimaado oo uu gaari iska saarto iyadoo aanan ciidamada u tababaran aysan hubin in qarax la kala furfuray. falka maanta ayaa muujinaya in raggii meesha ku diyaarsaday in dib ay u qaateen kadib markii uu ka fashilmay. sidoo kale xildhibaanka waxa uu yiri qaraxa ayaa la xaqiijiyay inuu qaatay oo gaarigiisa uu saartay mid ka mid ah saraakiisha ilaalada madaxtooyada Jubbaland. dhinaca kale waxa magaalada Kismaayo si xawli uga socda shirqoolo iyo abaabulo lagaga soo horjeedo musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ayuu yiri. shirqooladan waxaa hormuud ka ah ayuu yiri xildhibaan Xidig shakhsiyaad xilalka ka haya maamulka Jubbaland iyo kuwa xilal ka haya golayaasha federaalka oo hadda Kismaayo ku sugan. ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka indhaha ku hayaan ayuu yiri falaalka iyo shirqoolada ka socda Kismaayo. isbedel doonka Jubbaland waxa uu soo jeedinayaa inay ilaaliyaan amniga iyo midnimada Jubbaland. sidoo kale waxa uu soo jeedinayaa inay laabaan kacdoonka isbedel doonka Jubbaland.
dhammaan taageerayaasha gudaha iyo dibadda waxaan idin xaqiijinayaa in marnaba aanan nala cabsi gelin karin kuna taagannahay jidka isbeddeldoonka cidna hor istaagi kartana aysan jirin insha allah ayuu yidhi xildhibaan xidig ugu dambeyn waxa uu ku soo gabagabeeyey hay-adaha amniga ee Jubbaland hay-adaha amniga ee federaalka iyo ciidamada Amisom waxaan ka codsanayaa in baaritaan degdeg ah ay ku sameeyaan falkan dhinaca kale xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeysay maamul goboleedyada in dana ay ka leeyihiin diidmada sharciga batroolka wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay diidmada ay maamul goboleedyada kala hor yimaadeen sharciga batroolka kaasoo toddobaadkii hore ay meel mariyeen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wasiir Cabdirashiid ayaa sheegay in sababta sharcigaas ay u diideen maamul goboleedyada ay tahay in ay ka waayeen dana gaar ah waxaanu meesha ka saaray dooda madaxda maamul goboleedyada ah in aan lagala tashan sharciga waan la wadaagnay waana ka talagelinay maamulada inta doodaysa ee ka soo horjeesatay waxay doonayaan waxyaabo gaar ah ayuu wasiir Cabdirashiid maamul goboleedyada Puntland Galmudug iyo Jubbaland oo diidmo kala hor yimid sharcigan waxay baaq u jeediyeen beesha caalamka iyagoo u sheegay in aysan aqoonsaneyn sharcigan oo xukuumadda kaligeed si gaar ah ay u maamulatay Somaliland oo iyana ka hadashay sharcigan dhankoodu waxay sheegeen in aan waxba ka qusayn talaabada ay qaadeen baarlamaanka Soomaaliya ayna dardargelin doonaan howlaha ku aadan soo saarista shidaalka ansixinta sharciga batroolka ayaa ku soo beegmaya iyadoo bisha November ee sanadkan la filayo in la bilaabo bixinta blockiska goobaha shidaalka laga sahamiyay ee shirkadaha shidaalka ay iibsan doonaan si ay u bilaabaan shidaal baarista waxaana xukuumaddu uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Khayre la sheegayaa in dana badan ay ka leedahay sharcigan maadaama bisha Febraayo uu magaalada London ka dhacay shir lagu soo bandhigay sahankii shidaal ee laga sameeyay xeebaha iyo dhulka Soomaaliya geesta kalena xildhibaano ka socda Djibouti ayaa Hargeysa kula kulmay Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi xildhibaano oo ka socda wadanka Djibouti kuwaas oo Somaliland u tagay ka qaybgalka munaasabadda 18 May oo si balaaran looga xusay guud ahaan Somaliland kulankan oo ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland ayaa ugu horeyn madaxweyne Muuse Biixi waxa uu si mug leh ugu mahadceliyay wafdiga xildhibaanada ee ka socda wadanka Djibouti sida xilkasnimada iyo walaaltinimada leh ee shacabka reer Somaliland ay ula qaybsadeen munaasabadda 18 May oo maalin guud ahaan bulshada Somaliland ay si wanaagsan ugu dabaaldegeen xubnaha wafdiga ayaa dhankooda madaxweynaha soo gaarsiiyay dambaal hambalyo iyo salaana ay kaga sideen madaxda kala duwan ee dalka Djibouti waxaana ay madaxweynaha ay guud ahaan shacabka Somaliland ku amaaneen dimuqraadiyadda iyo xasiloonida ka hana qaaday dalka ay ku sifeeyeen mid tusaale u noqon karta dalalka geeska Afrika sida ay sheegeen wafdiga xildhibaanada ee ka socda dalka Djibouti ayaa kamid ah wafud kala duwan oo wadamo badan oo adduunka ka kala socotay kuwaas oo u yimid magaalada Hargeysa inay ka qayb galaan dabaaldegga munaasabadda 18 May oo bishan ka qabsoontay guud ahaan deegaanada Somaliland wasiirkii geeriyooday ee xukuumadda Soomaaliya ayaa abaalmarin caalami ah ku guuleystay kulliyad sharciga lagu barto oo ku taala dalka Canada ayaa abaalmarin sanadlaha ay bixiso guddoonsiisay qoyska wasiirkii dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo geeriyooday bishii Maarso abaalmarintan oo loo yaqaano Gold Key Award ayay mas'uuliyiinta kulliyadaas sheegeen in marxuum Jibriil uu ku muteystay hawshii wanaagsaneed oo uu ka soo qabtay Soomaaliya iyo Canada xubno ka tirsan qoyska wasiirka geeriyooday oo ay hor kacisay Faadimo Faarax oo ay xaaskiisa ayaa la guddoonsiyay abaalmarintaas oo loo qoondeeyo dadka howlaha wanaagsan ka qabta dhinaca arrimaha bulshada waa arrin farxad gelinaysa waayo Cabdiraxmaan maanta isagoo naga maqan ayaan qaabileena abaalmarin la siiyay waana mid uu istaahilo oo qaas ahaan ku muteystay waxqabadkii uu ka sameeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Canada kuwaas oo garab taagnaa ilaa intii ay soo qaxeen markii dambana uu uga tagay in dalkiisu uu caawiyo inta noloshiisa ka harsan ayay tiri Faadimo oo wareysi siisay BBC-da Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa 8 bishii Maarso ee sanadkan ku geeriyooday magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta geerida wasiirka waxaa sababay xanuun ku soo booday xilli uu diyaarinayay xafladda arooska ee gabadhiisa siyaasigaas oo da'diisu ay ahayd 63 sano jir ayaa ahaa shakhsi caan ka dhex ah bulshada Soomaaliyeed waxaana xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii dalka soo maray ugu dambeynna gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ayaa gudoomiye degmo ka noqotay UK iyadoo xijaaban Raaqiya Ismaaciil waxaa 16 bishii May loo doortay inay noqoto barasaabka degmada Islington ee waqooyiga London gabadhan oo ku dhalatay dalka Soomaaliya ayaa siyaasadda ku jirtay in muddo ah waxaanay golaha maamulka London ka mid ahayd tan iyo sanadkii 2012 ma jiro qof kugu martigelinaya inaad ka qayb qaadato balse waa inaad adigu isxilqaanto waxaana laga rabaa inaad fahamto sida go'aanada loo sameeyo goorta la sameeyo iyo cidda sameeysa intaba ay tiri mar ay ka hadlaysay khibradda maamulka
waxaa la aaminsan yahay in Raqiya ay tahay haweeneydii ugu horreysay ee xijaab xiran oo dalka Ingiriiska ka noqota barasaab ama gudoomiye degmo. howlaheeda ayaa ku saabsan adeegyada shacabka, waxaana inta badan ay ka qayb gashaa munaasabadaha dadweynaha iyadoo u matalaysa golaha ay ka tirsan tahay. Soomaalida qurba joogta ayaa heerar kala duwan ka gaaray siyaasadda wadamada reer galbeedka ay ku sugan yihiin. sidoo kale haweenka Soomaaliyeed ee wadamadaas ku sugan ayaa si gaar ah saameyn weyn ugu yeeshay siyaasadda. dalalka Mareykanka, UK iyo wadamo badan oo reer Yurub ah ayaa aqaladooda baarlamaanka iyo golayaasha kale lagu arkayaa siyaasiyiin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, halka kuwa kale ay u xusul duubayaan inay ka mid noqdaan. sanadkii la soo dhaafay Ilhaan Cumar oo ah gabar ka soo jeeda Soomaaliya ayaa noqotay mid ka mid ah labadii gabdhood ee ugu horreeyay ee muslim ah ee ku biiray aqalka Koongareeska Mareykanka. guud ahaan war wixii dalay daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawaneyseen channelka dabagalka wararka waa naga inta. haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka adigoo subscribe saaraya, sidoo kale rukumo gambaleelka si aad joogto ugu hesha 24 saac wararka halkan aan ku baahino. ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.